cusub dadka shisheeyahana weli aanan ka quusan Soomaaliya geer hoos ma insha Allah taala waan u guuri doonaa inaan baahiyaha dalka بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أنا قدوميها أورك دلنيردا اللغهية سلل أنا مقعي وياي سعد عثمان محمد أو سعيد هلك ساكو عن كعدينا يا والله هاي عدي كسو جدا قبلك أما نمتلي كرتا دقالة أوركان وقبان كرتا وح أبي يقرب جوج يوحي فكر كبير صناعي بانو باهنا هاي waxaan leeyahay ururkan waxaan muddo wuxuu jiray ilaa sanad ayuu gaadhaya oo nad ka wareysan doontiin isagoo madartay uu ka warami doono haddii alla yiraahdo isagoo faahfaahsan oo madartay isagoo wax u qabsanay iyo sida intaantii noo taala xogayahayga ururka Faysal Xaashin Riyaale ayaa ka warami doona imaka waxaan ka hadlayaa oo baaq u diraya qurba joogta inay madartay waxaan ka shaqeynaa sidaan sporti ay dhalinyaradu isku dhaxgal lahaayeen gobolka إلا سل إلا لغهية سيسكو دحقل لهايين سكو العيار لهايين داد اسبرتا اسكو حلان او ولالا او كسو لجيدة ديغان او ما داركتاي داد اسكو مديسان او قعانتي سايستو نقول لهايين ايان هذه جاركا شقينا وحان قابلنا سان اشعادو انتي اما عيالقال aan isku geyno oo kaga dhigno kalaab kaliyaata ka dhigno xaraadna kalaab kaliyaata gidigoogan ka dhigno ayaan isla ciyaarsinaa imaka waxaan ku tali jirnaa haddii alla yiraahdo oo inoo qabsamo bisha lixaad inaan qabano lughayo aan halka xarid intaan jibirar ka ururino selala aan lughayo geyno oo la soo ciyaarsiino saa isku bartaan jibiradaasi oo deegaan la waliyihiin in dad midaatay waliyihiin shirahana shirkayga labaadna aan ku soo qabano lughayo dhexdeeda ururka ahaan oo ilaa 8 xubnood kaga tagno ayaan doonaynaa halkan oo kooxdana ka hayno lughayo tagno deegaanka aan isku soo xidhno wixii aan u baahanahay kulay ayaan leeyahay cidii wax naga taakuleen karaysa qalab waxa fiisku baahan yahay computer aan baahanahay imika dhawaan soo jiidatiin baan leenahay xariga internetka oo talasoona ka soo jiidatiin ururahan si aan isku xidhnaano qurba joogteeda ay noola socdaan wax qabadkayga waxaan doonaa si aan dibadejin dadka ugu hayno waxyaabahan qabano waxa kamid ah sida dadka u dhashay gobolka ama deegaanka ka soo jeeda sida dhalinyarta Itoobiya wax ku baratay ee jaamacadaha ka soo baxay sida caafimaad ahaadaan ama maadooyinka kala ahaadaan ayaan ugu tagnaa Itoobiya dhexdeeda raba ama meelaha kale Itoobiya jaamacadaha ka jira waxaan u ballan qaadnaa saan anaguna xafiis u geyn lahayn ashaadadooda ee madarata shaqo uu ugu heli lahayn sidoo shaqo weela oo qof dejin lahayn oo qof kamid ah Soomaaliland ugu dhig lahayn aan madaragtay deegaanka aan u dadayn lahayn inuu camiri lahayn ayaan hadda jeer ku hawlanahay waxyaabaha ka shaqeynay u sii waaweyn taasaa ka qayb midda kale waxyaabahan oo qorsheysan ee wali aanan qaban waxa kamid ah in ku tiri jirnay inaan qabano inaan ka sameeyno sanadkiiba mar ku ka dhaca awdal ilaa silil oo ilaa 8 kooxood ilaa 10 kooxood isku yimaadaan qarash ahaan uba anaga dib nooga dhigtay waxaan la cidina ka taakuleynaysa ee xafiiska noo qalabeynaysa ama naga la qayb qaadanaysa dharkii sportiga ahaato ama kubadii ha noqoto ama biriyi teelaanada laga taagayay waxaan leenahay cidii naga taakuleynaysa wax naga la qabanaysa deegaanka u dhalatay waxaan leenahay in garab joogsadaan hanala qabtaan wax san deegaanka aan u meel aan dadka ugu soo biirinayn aan dibadejin dadka inuu ugu sameeynayn in dadkeena maanta u baraarujinayn deegaanka aan jeclaysiinayn ama dhalinyarada maartay deegaanada ama Djibouti ha joogan ama Itoobiya joogan u dhalatay sida Soomaaliland ee deegaanka Salad ilaa lughayo ka soo jeeda san u furi lahayn ee waliba reer uga furan lahaayeen eelka ugu guursan lahayn u wada reer ugu yeelan lahaayeen ayaan inta badan ka shaqeynaa oo muhiimada saarnaa wixii wax qabada ee cidii wax nagala qabanayso waxaan leenahay hanbaliyo inay garab joogsatiin baan qurb joogta ka doonaynaa sida ugu qurux badan in baaqan uga soo jawaabaan waxna noola qabtaan fikraan hada fikir macal hayaan in fikirkooda ugu darsadaan maanta caalamka wada aragtay Soomaaliya cid wax dhisaysa wax horumarinaysa waa qurbo joogta beel waliba u dhalatay deegaan waliba u dhalatay waxaan maleeyaa deegaankan Salil iyo lughay qurbo joogteedii inay maartay marmar una xasuustaan inta badan xasuustooda malaha ka maqanaasnaa sababta waa raggaas oo ka hadlayay oo dhalinyarada
maxay urur leeyihiin maxay samaysteen horumar maxay gaadheen cid ka hadlayso oo weli nala soo xidhiidhay ma jirto cid waxyaab dana kale ka hadlayso way badan yihiin cidda wax dejin kartaa ee wax meelayn kartaa ama waxaan ku qabsan karnaa waa dhalinyaro hadday isku xidhan tahay kaba soo qaad 40 dhalinyaro oo aan dhulka kale ka soo kala kaxaynay Ethiopia qaar aan uga yeernay jaamacadooda qaar Djibouti ka soo kaxaynay 40 kaaba reer ay ka samaystaan shaqooyin ay ka helaan dadkaas dad noo soo beero ay noqonayaan meelo banaan way buuxinayaan sida awgeed turba joogteeda oo u fiirsato dhalinyarada halana shaqayso hanana soo xiliinaan baan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka shisheeyaha ana weli aanan ka quusan Soomaaliya geer hoos ba insha Allah taala waan u guuri doonaa inaan baahiyaha dalka